السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال رمضان مبارك. كسو دوادا برشادة حسابتا وتحانين واحد مقعي شيني جستير عاو فيديوغن وحان كسي عن بقادنا area and perimeter of quadrilaterals oo taxaneen oo ahayn waxaan video ka horeeyay ku soo baranay saddex ka mid ah shaxanada afar geesolayaasha oo kala ahaa square oo af Soomaali lagu yiraahdo laba jibbaarani, rectangle oo lagu yiraahdo af Soomaali lady, iyo parallelogram oo af Soomaali lagu yiraahdo barbaroole. Saddexdaas shaxan ayaa waxaan soo baranay beedkooda iyo wareegooda. Caawana waxaan videogan gaaban ku baranaynaa laba shaxan oo ka mid ah afar geesolayaasha oo la kala yiraahdo rhombus oo af Soomaali lagu yiraahdo qardaas, iyo kite oo af Soomaali lagu yiraahdo runtii af Soomaali waxa lagu yiraahdo ilaa hadda mana soo helin. waxaan rajeynayaa insha Allah taala qofkii kite af Soomaali waxa lagu yiraahdo shaxanka kite af Soomaali waxa lagu yiraahdo garanaya inuu commentiga hoos noogu soo qoro. Marka waxaan baranaynaa rhombuska iyo kite-ka beedkooda iyo wareegooda. Aan ka bilowno shaxankeena koowaad. Shaxankeena koowaad waa rhombus. Rhombus waxa af Soomaali lagu yiraahdaa qardaas, waxaana la yiraahday find the area and the perimeter of rhombus. Raadi beedka iyo wareega qardaas. Formulagana la siiyay in ku soo helayno beedka iyo wareega qardaas waxa weeyaan marka hore waxaan soo raadinaynaa area. Area waxa lagu helaa diagonal 1 lagu dhuftay diagonal 2 oo loo qaybiyay 2. beedka qardaas waxa lagu helaa xagal gooyaha koowaad oo lagu dhuftay xagal gooyaha labaad oo loo qaybiyay 2. xagal gooyaha koowaad iyo xagal gooyaha labaad waxaan ka wadnaa labadan xagal gooye midka doonto ayaa lambar 2 iyo lambar 1 u kala bixin kartaa, laakiin ujeedadu waxa weeyaan xagal gooyahan iyo xagal gooyahan oo la isku dhuftay cabirka xagal gooyahan iyo cabirka xagal gooyahan oo la isku dhuftay oo loo qaybiyay 2 ayaa waxa lagu helaa beedka qardaas, beedka rhombuska. Haddaba isaga ayaan ku horeynaa. Area waxaan dhahnay waxa lagu helaa diagonal 1 lagu dhuftay diagonal 2 oo loo qaybiyay 2. Haddaba diagonal 1 midkaan doona u bixino kan ayaan u bixinaa diagonal 1ka. Diagonal 1ka waa imisa cabirkiisu. Haddii aad xasuusatid waxaan soo baranay magacyada iyo noocyada afar geesolayaasha markii aan shaxankan rhombuska aan sharxayno. waxaan dhahnay dhinac walba rhombusku waxa weeyaan isku cabir. taasaan soo baranay. waxaan kaloo dhahnay qodob kaloo dhahaya xagal gooyaasha rhombusku way kala dheer yihiin oo kan ayaa wuxuu ka dheer yahay kan. taasna waxay ahayn qodob ka mid ah qodobyadii rhombuska. qodobyadii rhombuska oo muhiim ah waxaa ka mid ahaa inay xagal gooyaashu ay isku jarayaan si isleeg. halkan markay tahay barkulankoodu mid walba wuxuu isku goonayaa si isleeg. dhankan wuxuu la mid yahay dhankan ayuu la egyahay. dhankana markuu dhanka kale ka go'ay way isleeyihiin. haddaba cabirka dhankan iyo cabirka dhankan way isleeyihiin. marka cabirkan waxaana la siiyay dhankan yar waxaana la siiyay 7 centimeter. dabcan cabirkiisa kale ee dhankan kalena waa 7 centimeter. waxay isku jarayaan si isleeg. haddaba cabirka kana diagonalkan labaadna waxaana la siiyay 24 centimeter dhankan. dabcan dhankiisa kalena uu leeyahay oo waa 24 centimeter. marka diagonalkan xagal gooyahan ka koobaad dhamaantii wuxuu ka kooban yahay dhankan oo 7 centimeter ah iyo dhankan oo 7 centimeter ah. markii la isku geeyo wuxuu ka kooban yahay 14 centimeter. waxa dhahay diagonal 1ka waa 14 centimeter. halka ay u soo dhig 14 lagu dhuftay wadaysa. diagonal 2 waxaan haysanaa dhankan oo 24. dabcan wuxuu isku jarayaa si isleeg. markuu kala go'ay wuxuu kala go'ay si isleeg. marka dhankan waa 24
dhankana waa 4 iyo 20 marka diagonalka gebi ahaantiisu wuxuu ka kooban yahay 24 kan dhankan ah iyo 24 kan dhankan ah marka la isku geeyana waa 48 xagal gooyahan cabirkiisu dhamaantii waa 48 markaas aasa 48 afartan lagu dhuftay 48 diagonal 1 times diagonal 2 oo loo qaybiyay 2 area marka waxay la mid tahay aan soo qaadano calculatorkeena 14 lagu dhuftay 48 waa mise waa 672 loo qaybiyay 2 marka area waxay la mid tahay 672 loo qaybiyay 2 672 way nagu jirtaa 2 loo qaybiyay 2 waa mise 336 centimeter square sidaas ayaa waxa lagu sahelaa beedka qardaas beedka rhombuska haddaba aan u gudubno perimeterka waxay leedahay qaacidadeedu perimeter waxa lagu helaa 4 lagu dhuftay side dhinacyada mid ka mid ah haddii aad soo heshid cabirkiisa 4 ku dhufo macnaheedu marka waxay ku siinaysaa dhammaan wareegga uu ka kooban yahay rhombusku ayuu ku saaraysaa jawaabtaas haddaba halkan haddii aan fiirino rhombuska dhinacyadiisu wax cabir ah nala siiyey ma jirto waxaana laga rabaa in anagu aan soo helno waxay inoo sahlaysaa inaan soo helno cabirka dhinacyada rhombuska waxay inoo sahlaysaa inagoo isticmaalna xisaabta caanka ah ee lagu magacaabo Pythagoras theorem waxay inoo sahlaysaa inaan soo helno dhinacyada saddex xagal quman halkana rhombuska waxaad ka aragtaa inuu gebiisa ka kooban yahay afar saddex xagal oo leh xagal quman waayo muxuu xagal quman ku yeeshay markii ay labadan xagal gooye ay isdhaafayaan waxa ay sameeyaan barkulankoodu perpendicular wax la dhaho perpendicular waxa weeyaan markii ay xagal quman sameynayaan tan xagal quman halkan ah ayuu sameysay saad aragtid tan xagal quman halkaas ayay sameysay xagal quman halkan ah iyo xagal quman halkan ah waa 90 degree xagashana sidoo kale waa 90 degree xagashana sidoo kale waa 90 degree xagashana sidoo kale waa 90 degree dhammaantoodna markii la isku daro waa 360 degree marka haddaba si aan u sahno perimeterka waxay noo sahlaysaa Pythagoras theorem aan u fiirsan haddaba saddex xagal ka mid ah ayaan afar guduudan ku qorinaa sida halkan aad ka aragtaan saddex xagalka guduudan legan muxuu haystaa 7 centimeter legan gaaban wuxuu haystaa 7 centimeter leganna wuxuu haystaa 24 centimeter marka dhankaas ayaa loo baahan yahay inaan soo helno haddii aan dhankan soo helno waxa inoo sahlanaanaysaa inaan soo helno wareegga uu rhombusku ka kooban yahay marka inaan dhankaas soo helnana waxa inoo sahlaysaa Pythagoras theoremka haddaba saddex xagalkan xagasha quman leh xagasha dhanka ka soo horjeeda waxaa lagu yiraahdaa af Soomaali shakaal dhankaasi waxaa af Soomaali lagu yiraahdaa shakaal wuxuuna leeyahay xarafka C labadan dhankan iyo dhankan waxaa la yiraahdaa leg iyo leg laakiin waxaa loo kala siiyaa A iyo B waxaa siin kartaa dhanka aad doontid A waxaa siin kartaa dhanka aad doontid labadan dhan midna C ma siin kartid C waxaa iska leh keli ah hypotoniska shakaalka oo ah dhanka ka soo horjeeda xagasha quman waxaad ku xasuusan kartaa inuu ka soo horjeedo xagasha quman waxaa kaloo ku xasuusan kartaa inuu yahay dhanka ugu dheer intaas waxaan rajeynayaa inaan isla fahnay haddaba aan aragtida Pythagoraska ku soo saarno dhankaas aragtida Pythagoras waxay leedahay A laba jibaaran oo lagu daray B laba jibaaran waxay la mid tahay C laba jibaaran A laba jibaaran midkaan doono aan siino 7 centimeter ayaan kasoo qaadanaynaa waa A 7 centimeter dhankan A weeyaan
7 سنتيمتر oo laba jibaaran oo lagu daray b oo laba jibaaranna 24 سنتيمتر oo laba jibaaran 24 laba jibaaran waxay la mid tahay c oo ah dhanka aan raadinayno oo laba jibaaran. haddaba 7 laba jibaaran waa imisa? 7 laba jibaaran waa 7 laba jeer isku dhacday 7 lagu dhifto 7 waa 49 lagu daray 24 laba jibaaran 24 laba jibaaran waa 576 haddii 576 49 lagu daray 576 waxay la mid tahay c laba jibaaran. 49 lagu daray 576 waa imisa? 49 lagu daray 576 aan ku celinayaa 49 lagu daray 576 waxay la mid tahay 625 weeyaan markii labaad isku daray waxay la mid tahay c laba jibaaran. halkan marka aad joogtid waxa aad samaysaa daawade dhan walba waxaad ka saartaa xididka. marka dhan walba xidid ka saartid xididka iyo laba jibaaran waa isla baxeen c kaliya halkan nooga soo baxday c marka waxay la mid tahay 625 naga saaray xidid waxa weeyaan 25. markii aad soo heshay halkan inay 25 tahay dhankan waxaan dhahnay dhinacyada rhombusku dhammaantood way isleeyihiin waa isku cabir. dhinacan wuxuu leeyahay dhinacan iyo dhinacan iyo dhinacan dabcan dhinacna waa 25 dhinacna waa 25 dhinacna waa 25. marka 4 lagu dhuftay waxaan dhahnay marka primary wuxuu la mid yahay 4 lagu dhuftay hal side oo ka mid ah side-ka waa imisa waa 25. marka primary wuxuu la mid yahay 4 lagu dhuftay 25na waa 100 سنتيمتر. 25 lagu dar 25 waa imisa waa 50 25 lagu dar 25na waa 50 50 lagu dar 50na waa 100. saas ayaan waxaan kusoo helnay perimeterka wareegga rhombuska. waxaan u gudbaynaa shaxankeena labaad kite. find the area and the perimeter of kite. raadi beedka iyo wareegga kite. fadlan qofkii garanaya ereyga kite shaxankan kite af Soomaali waxaa lagu dhaho hoosta commentiga ha noo soo dhigo. formulaga ama qaacidada kite markii la raadinayo areaga waxaa lagu helaa sidoo kale diagonal 1 lagu dhuftay diagonal 2 oo loo qaybiyey 2 waxay ka siman yihiin rhombuska qaacidada areaga. perimeterkana waxaa lagu helaa dhammaan side-ka oo la isku daray. haddaba aan ku horeyno areaga waxaan dhahnay waxaa lagu helaa diagonal 1 lagu dhuftay diagonal 2. haye waxaan fiirinaynaa dhinacyada dhammaantood. dhammaan dhinacyada rhombusku islama eka. waxaan jeedaa dhinacyada kite-ku dhammaantood islama eka. dhinacyada deriska ah unbaa isla eg. dhinacan wuxuu leeyahay dhinacana wuxuu leeyahay dhinacan. labadan dhinac waa deris waa isku cabir. labadan dhinacna sidoo kale waa isku cabir. waxaa kaloo xasuusanaysaa oon kusoo barinay cashirkeeni magacyada iyo noocyada afargeesolayaasha inuu shaxanka kite ay xaglihiisu waxaan jeedaa ay xaglagooyaashiisu ayna isla ekeen. mid ka mid ahana uu yahay bisect each other. midkan keligii xaglagooyahan ka yimaadee gaaban ayaa si islaag u kala go'ay. dhankan waa 8 سنتيمتر ayuu noqday dhankan 8 سنتيمتر ayuu noqday. dhammaantiin markii xaglagooyahan dhammaantiin wuxuu ka kooban yahay 8 lagu daray 8 oo ah 16. marka mid ka mid ah diagonal 1ka tusaale ahaan kan gaaban haynoo noqdo wuxuu cabirkiisa yahay waan haysanaa 16. haye lagu dhuftay diagonal 2 waa kan dheer. diagonal 2gan ma haysano cabirkiisa intuu leeyahay laakiin waxaa inoo sahlayaa haddii aad halkan u fiirsatid
shaxankan waa saddex xagal isagana saddex xagal leh xagal quman soo ma aragtid waxaana kasoo horjeeda xagasha quman saarka la yiraahdo hypotenuse waxaa inoo sahlaya inaan soo helno dhinacan cabirkeeda waxaa inoo sahlaya inaan soo helno xisaabta la yiraahdo Pythagoras theoremka haddaba aan bilowno Pythagoras theoremka si aan usoo helno dhinacan waxaan ku heli karnaa a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran a laba jibaaran kasoo qaad dhinaca aan raadinayno inuu yahay kasaan ahna a laba jibaaran oo lagu daray b laba jibaaran waxaan helnasanaa sideed laba jibaaran waxay la mid tahay c laba jibaaran oo ah 10 mar walba waa inaad taqaanid shakaalka oo ah dhinaca ugu dheer saddex xagalka waxaa la yiraahdaa Englishna hypotenuse wuxuu kasoo horjeedaa baan yiraahday xagasha quman sida hadda u xusan tahay kuma dhibayso xisaabta Pythagoraska haddaba a laba jibaaran baan dhahaynaa a laba jibaaran lagu daray 8 laba jibaaran waa imisa waa 64 waxay la mid tahay 10 laba jibaaranna waxaan ognahay inay tahay 100 marka a laba jibaaran waxay la mid tahay 100 baad dhihi marka 100 laba option baa haystaa 100 markaad 64 ka jaraysidna 64 waxaad u fiirstaa waxay wataa calaamad plus ah markaas waxu bedel plusta minus laga jaray 64 baad dhihi marka a laba jibaaran waxay la mid tahay 100 laga jaray 64 waxaan ognahay inay tahay 36 halka marka aad joogtid waxaad samaysaa dhan walba waxaad ka saartaa square root-ka dhan walba xididka ka saar xididka iyo hasla baxaan laba jibaaranaha ee kaligeed bayna soo hadhay ee kaligeed waxay la mid tahay 36 laga jaray 36 laga saaray xidid oo ah 6 markii laba jeer isku dhacdaan waxay soo saartaa 36 marka waxay la mid tahay 6 optionka kale aad uga shaqeyn kartid waxaad dhihi kartaa aan tirtirno halka markii aad joogtid optionka labaad aad haysatid waxa weeyaan 64 ayaad dhan walba ka jari calaamadan baad u bedeli minus 64 ayaad ka jari halkan kana waxaad ka jari 64 baad dhihi laba jibaaran waxay la mid tahay 64 iyo 64 waa isla baxayaan 100 laga jaray 64 waxa weeyaan 36 square root-ka ka saar dhan walba laba jibaaran marka labadaba isla baxayaan laba jibaaran marka waxay la mid tahay badaas kaligeed bay noo saaray markii square root-ka isla baxeen jibaaranaha kaligeed bay noo saaray kaligeed waxay la mid tahay 36 laga saaray square root oo la mid ah 6 sida ayaan waxaan ku soo helnay dhinacan cabirkiisii diagonalka qayb ka mid ah ayaan soo helnay oo ah 6 haddii uu diagonalkan isla ekaan lahaa si islaaga u kala go'i lahaa sida rhombuska halkan waxay noo noqon lahayd dhinacan kalena waxay noo noqon lahayd 6 nasiib darro islama eka isagana waa inaan si gaar ah u soo helnaa halkana sida kaaga muuqata shaxankanna waa saddex xagal leh isagana xagal quman waa saddex xagal leh xagal quman waayo markii ay labada xagal gooye ay isjarayaan waxay sameynayaan saddex xagal leh xagal quman 90 degree dhankana 90 degree dhankan kalena 90 degree dhankan kalena 90 degree markii la isku wadarana afar saddex xagal oo midiba 90 degree wadata oo markii la isku wadaro cabirkoodu noqonayo 360 degree ayay sameynayaan marka shaxankan kaliya ayaan u fiirsanaynaa shaxankan dhankan wuxuu haystaa sidoo kale 8 centimeter halkan 8 baan ugu taala inaa xasustid weeyaan 8 centimeter oo dhankana wuxuu haystaa waa 17 centimeter marka dhankan muxuu yahay waa dhanka ugu dheer wuxuu ka soo horjeedaa xagasha quman marka dhankan waa hypotenuse na
waxaan ognahay in Afsoomaali lagu yiraahdo shakaal wuxuu wataa xarafka C. xarafka C ayuu isaga leeyahay. labadan dhinac dhankan iyo dhankanna A iyo B ayaa la siiyaa. midka doonto ayaad A ku qori kartaa, midka doontana B ayaad u bixin kartaa. adiga taa ikhtiyaarka iska leh. laakiin C A iyo B midna uma bixin kartid oo C waxa iska leh shakaal. haddaba sidoo kale si aan u soo helno cabirka halkan waxay noo sahlaysaa xisaabta la yiraahdo Pythagoras theorem. aragti Pythagoras theorem waxay leedahay sidoo kale ee lagu daray A laba jibaaran lagu daray B laba jibaaran waxay la mid tahay C laba jibaaran. A laba jibaaran waxaan haysanaa ka soo qaad 8 laba jibaaran oo lagu daray B laba jibaaran oo ah dhankaan raadinno waxay la mid tahay C laba jibaaran oo ah 17 laba jibaaran. haye 8 laba jibaaran waa imisa? waa 64 lagu daray B laba jibaaran wataan raadinno waxay la mid tahay 17 laba jibaaran. 17 laba jibaaran waa 289 waxay la mid tahay 289. halkaas markaad joogtid sidii tii hore ay waxaad samayn kartaa laba option inaad dhankan 64 aad ka jartid dhan walba, dhankana 64 ka jartid. markaas waxaad dhigaysaa 64 iyo 64 waa isla baxayaan. B laba jibaaran kaligeed ayaa ku soo haraysa. B laba jibaaran marka waxay la mid tahay 289 laga jaray 64. 289 laga jaray 64 waxay la mid tahay 225. halkan markaad joogtidna waxaad ka saartaa square root-ka. markaad square root ka saartid waxaad dhihi labadan jibaaranaha ku ah B-da iyo square root-ka waa isla baxayaan. B kaligeed baa halka kaa soo harsan. B waxay la mid tahay 225 laga saaray square root oo la mid ah 25. aan hubino marka 225 square root of 225 waa imisa? waa 15. raali ahaada waxay noo soo hadhay halkan inay tahay inoo soo baxday halkan inay tahay 15. marka B oo ah side-kan waa 15. hadda markan waxaan soo helnay diagonal-kii. diagonal-kan dheer dhinacaas waa 6 dhinacana waa 15 lagu daray 6na waa 21. marka diagonal-kan waa 21. halkaas ayaan ku qorin marka diagonal 2 qaacidada inagoo fiirinayna qaacidadeennii diagonal 2 waxaan soo helnay 21 loo qaybiyo marka 2. marka area waxay la mid tahay 16 lagu dhuftay 21 oo loo qaybiyo 2. 16 lagu dhuftay 21 waa imisa? 336 loo qaybiyey 2. marka 336 waa halkan noo sii jirta loo qaybiyo aan dhahaynaa 2 waa imisa? waa 168. marka area waxay la mid tahay 168 centimeter square. 168 centimeter square. halkaas ayaan waxaan ku soo helnay beedkii inagoo soo marnay waddo dheer oo ina caawisay xisaabta la yiraahdo Pythagoras theorem-ka oo runtii aad iyo aad muhiim u ah. waxaan soo helnay 168 centimeter square. haddaba aan helno perimeter-ka. perimeter-ka waxaan dhahnay waxaa lagu helaa A lagu daray B lagu daray C lagu daray D waa saarirka la isku daray. kan waa A saarkana waxaa la dhahaa B saarkana waa C saarkana waa D isku ogey. marka saarkan waxaan ognahay 17 centimeter haddaan haysano saarkan kasoo horjeeda ee dariskiisa ah isna waa 17 centimeter. halka 17 centimeter ku qoran. saarkan waxaan haysanaa 10 saarkiisa kalena waxaan ognahay inuu leeyahay waa 10 lagu daray 10 waa imisa? waa 20. 17 u gee 37 17 u gee 54. marka waxaan dhahaynaa perimeter wuxuu la mid yahay 17 lagu daray 17 oo lagu daray 10 oo lagu daray 10. perimeter marka wuxuu la mid yahay
54 sentimitir. halkaas ayaan waxaan kusoo helnay bedkii iyo perimeterkii kite. daawadayaal waxaan rajeynayaa videogan gaaban inuu ka anfacay mowduucan caawa ka hadlaynay. inta aan video lamid ah ku kulmayno waxaan idiin sii dhaafayaa Ramadaan mubaarak.